بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaa Soomaaliyeed meel aad joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku ammaan yeelo. Cidii dhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah oofiyo, inta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, inta dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto. dalka dadka diinta iyo dawladnimada ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob saddexaadna dib baan ka soo sheegi doonaa, isagana waa ka hadli doonaa. qodobka saddexaad oo aan dib ka sheegi doono waa Zakiya iyo qadiyadii Dhuusamareeb oo aan xoga dheeraada ka helay, oo aan la hadlay dadkii victimska ahaa oo hawshu ku dhacday, aan la hadlay. dib baan ka soo sheegaya. qodobka koowaad, laascaanood musiibada ka socota ayaan kelmad ka oran doonaa. qodobka labaadna doorashada khilaafka ka taagan Puntland iyo hadalkii wasiir Juxa oo aan jawaab ka helay wasiir Xasan Shire Abgaal, wasiir hore, ayaan isagana kelmad ka oran doonaa. qodobka koowaad, laascaanood waxaa ka socda dilal qorshaysan oo la beegsanayo dadka birimageydada ah iyo dadka waxgaradka iyo cuqaasha ah, aqoon-yahanka. waxaa ugu dambeeyey qofkii 193 noqday oo lagu dilo laascaanood oo la beegsado, Allah u naxariistee, Hadraawi oo ka mid ahaa xisbiga mucaaradka ah. dadkaas waxay ka midaysan yihiin hal shay. kulligood waxay wax ka sheegeen shaqada iyo shaqaaqada ay ka wado Somaliland laascaanood. intaasay ka midaysan yihiin. waxaad hadda ka hor dhegaysateen oon idin xasuusinaya, Allah u naxariistay, Sheekh Cabdinaasir Fari oo si toosa ugu eedeeyey dhibaatada ka socota laascaanood inay ka dambeeyaan Somaliland, sheegayna xilligay soo bilaabatay inay ahayd xilligay iyagu la wareegeen gacan ku haynta laascaanood. waxay ahayd kadib markay tarxiileen dadkii shacabka ahaa ee ka soo jeeday reer koonfur galbeed oo ay qabiil ku beegsadeen. arrintaasi fadeexad bay ahayd laga galay ummadda Soomaaliyeed. waxay ahayd gaf iyo dhac loo geystay ummadda Soomaaliyeed gebi ahaanteedba, gaar ahaanna dadka reer koonfur galbeed. waxaan weli xasuustaa qalbigayga ka go'ila wiil ku dhashay laascaanood oo ku koray oo wax ku bartay oo ka shaqaystay oo ku guursaday oo carruur ku dhalay isagii carruurtiiba la tarxiilay. caalamka waxaa macruufka ah qofka hadduu meel ku dhasho degaan buu ka yahay. qof safar iska ah hadda waddankaan aan joogno oo maraya, haddii diyaaradda islaani ku dhasho, ilmahaas ay ku dhashay diyaaradda, jawiga hawada hadday ku dhasho, hawadaas waddanka iska leh buu ka qaadanayaa citizen iyo dhalasho. wiilkaasu laascaanood buu ku dhashay, asal ahaanna Soomaali buu ahaa, markaana waa ku dhashay, degaan buu ka noqday. ma ujeeda, xaq buu u lahaa inuu ku noolaado. gardaraa looga tarxiilay, isagii iyagii xoolahoodiina laga boobay. dhibaatadii iyo hantaa wilifkii la baday waad garanaysaan. waxaa lagu eedeeyey iyagu inay ka dambeeyaan amni xumada iyo dilalka. hadda dilkii ma joogsaday. Hadraawi waa qofkii 10aad tan iyo intii la tarxiilay dadkaan. Somaliland iyadaa si toos uga dambaysa. qadiyadan waxaa iska lahaa nimanka la yiraahdo TPLF. waxaa ka qaatay al-shabaab iyo cid alla ciddii la shaqaysata iyo cid alla ciddii ku shaqaysata dhaqankaas ah caburinta. waxaa la beegsadaa aqoon-yahanka. sababta maxay tahay waxgaradka loo beegsanayo? maanta waxaa ka dhacay mudaharaad, dadkiibaa qaylinaya oo ka carooday ninkii la dilay. maamulkay ku caroodeen oo ku mudaharaadeen. xabad bay la dhacday maamulku. kuwa xabadda la dhacaya waa intii soo hartay markii la laayay cuqaashi, cawaankii weye. waa dadkii aan garaadka lahayn oo wax magaratada ahaa. makastiibaa qoryaha gacanta loo geliyey. waxaa laga reebayaa dadka inta aan waxna garan, waxna fahmin, iimaanka iyo caqligooduna uu yahay hunguri iyo lacag yaro ay qaataan. intaasaa laga reebaya si loo maamusho. waxgaradkii waxay noqonaya wax la dilo iyo wax carara oo meesha iskaga qaxa, iyo in baqdoo aamusta oo aan hadli karin. ariyaa soo qaada Somaliland iyo dilalka ay ka hadlayso, dilalka ay ka hayso ama ku wado laascaanood oo markaa laba beri sii noolaada. halkaasay maraysaa. laascaanood xoog baa lagu haystaa. Somaliland waxay leedahay waxaan rabnaa waa go-aynaa. oo maxaa u go-aysaan? dhib baana loo geystay. dhibkiibay iyagu dadkii ku hayaan. hadda waana la caburiyey, caburiskiibay dadka ku hayaan. waxay leeyihiin inaan go-naan rabnaayo dimuqraadi baan noqonaynaayo, dimuqraadiyad baana. ma dimuqraadi waa dadka laaya?
dad mudaharaad iyo shacaba miyaa la laaya imisay qof dileen maanta oo dhaawaceen ma ujeedaa waa qadiyadii odayaashu ay ka sheegayeen jigjiga maantay u taallaa madaxweyne mustafa cagjar cidda amniga diidani ma ahayn odayaasha jigjiga ku shirayay meesha lagu dirirayaana ma ahayn hargeysa iyo meel somaliland ay leedahay ee waa laascaanood odayaashuna odayaashii iyo cuqaashii laascaanood bay ahaayeen laascaanood weeye meesha dhibku ka taagan yahay oo ay ka dhiidhiyayaan iyagoo dhan ka qaylinayaan dowladda federaalkana xaq waxay ugu leeyihiin maadaama ay yihiin dad soomaaliyeed oo soomaalinimada aaminsan aanan rabin inay go-aan sool iyo sanaag iyo cayn inay ictiraafto maamul goboleed iskiis u madax bannaan waxaan dhegaysanaya shalay wasiirka maaliyadda cilmi oo ka hadlaya baarlamaanka su-aala la weydiiyey ay ka mid ahayn sool iyo sanaag iyo cayn wuxuu yidhi sool iyo sanaag iyo cayn maamulay ka tirsan yihiin oo waan ognahay in aan waxba la gaarsiin laakiin maamulay ka tirsan yihiin waxaas waxba kama jiraan dadku xaq bay u leeyihin inay go-aan oo istaagaan laba gobol iyo bar weeye waxay xaq u leeyihiin inay istaagaan oo go-aan oo ay maamul goboleed noqdaan oo ay hoos istaagaan calanka buluugga ah ee aan lagu khasbin ingiriis xuduud uu sameeyey inay ku khasbanaadaan ingiriiska ka hor soomaali baynu ahay ingiriisku 1884 buu yimi soomaaliyana 1884 ma dhalan 1888 buu yimi actually weliba 19 something buu soo galay go-aanka waagay gaareen ba 84kii ahayd 88kiina go-aankii qaybsashada la gaaray kadibna tartiib baa loo soo galay 1900kii bay soo galeen ma 1900 bay soomaaliya dhalatay soomaaliya waxay jirtay intaasoo kun oo qarni ka hor ingiriiska magac bayna lahayd soomaaliyana la oran jiray haddana magacii bay leedahay ingiriiska kadib soomaaliyana la yidhahda wax kala googo-an oo waddamo kala noqonayaana ma jiraan intii isla xorowday waa soomaali dadkaas marka waa in la ictiraafaa waana in maamul goboleed loo dhisaa waana in xuquuqda ay ku leeyihiin qaranka soomaaliyeed ay helaan waa inay helaan dani uguma jirto labadan maamuloo ay ku jiraan midkoodna waa ku baaba-een waa ku dambeeyaanoo waa ku hareen xaq bay u leeyihiin ummadday ka mid yihiin in la fasaxay xaq u leeyihiin oo ay dhistaan maamulkooda iyaga waxaan kula talinayaa kuwaan cawaanka oo qoryaha sistana aan kula talinaya war dadkiina ha baabi'inina xoolaha tihiine dadkiina ha baabi'inina qarnigii 21 cid dhulkoodii lagu haysta idinkaa ka jira marka intay isku xishootaan oo aad wax isku fashaan haddaad damiir iyo dareen leedihiin ka daaya dadka xabadda xoreeya dadka ammaan siiya waxay rabaanna u sii daaya ugana leexda waddankooda haddaad idinku somalilan u shaqo tegaysaan u shaqo taga aada hargeysay degan tahay somalilan ha ku khasbinina cidaan rabin ma rabaan reer laascaanood maxaad ugu khasbaysaan ma arkaysaa intaasaan ka oranaya qadiyaddaas qodobka labaad wasiir juxa wuxuu yidhi maleeshiya ka amar qaata oo uu xukumo xasan shire abgaal ayaa waxay qabsadeen karindhiig si ay u hor istaagaan doorashadii waxaan wacay labadaba waa wacay juxa waa iga qaban waaye laakiin waxaa iga qabtay xasan shire abgaal waxaan weydiiyey eeddaas loo soo jeediyey wuxuu yidhi ma raba inaan ka hadlo laakiin anigu bilba waa ka maqanahay magaalada waddankaba ma joogin etoobiyaan jirin haddana xamar baan joogaa oo kaala hadlaya waxaan ku yidhi staafkaagii baa lagu eedeeyey inay yihiin ciidamada meesha qabsaday wuxuu yidhi ciidankayga ilaalada ahaa juxaan ku ogaa isagay ilaaliyaan buu yidhi haddii wiilashu adeerka u ahaa hadda intay xanaaqeen ay meel qabsadeenna isaga adeer oo ahay hadda ka soo saaro isaga adeer oo ah wasiirkoodiina ahe ha ka soo saaro hadalkaasi waa gar waxaan rabay wasiirka inaan weydiiyo kelmaddaas wuu iga jawaabi waaye laakiin waxaan rabaa inaan dib dadka ugu celiyo qadiyadda mushkiladu xagee ka socotaa doorashaday ka socotaa doorashada maxaa mushkileeyey doorashada siciid baa wuxuu yahay gacan aan aamin ahayn oo aan waxba cidi ku aamini karin laakiin waxa uu ka hadlay waa wax la rabi karo deegaanada doorashada in laga qabto waa wax la wada rabo laakiin siciid aamin maaha waxaa samaysmay xisbiyo sagaala xisbiyada ama ururo waxaa rabtidbe waxay sameeyeen shir bay qabteen shirkaasay go-aan ku soo saareen 13 qodob oo cabasho bay soo saareen oo doorashada shardi u ah juxa maanta markii la weydiiyey 2 qodob oo baarlamaanka ku xiran mooyee intii kale waa ka hadalnay buu ilaa iyo haddeer sohdimihii xal looma hayo dowladdaanaana khaladay sohdimaha bal odayaashaan ila dhegaysta warkooda karkaar waxaan ka degannahay xumbays inta ay xukunto way u sareyso qodax
ilaa hulcaanood tuulooyinkeedii ee xakutay waa la jaray maamulka baa ku dhawaaqay jaray nagama suurowdo iyadoo taasu naga maqanta inaan doorasho u daray wax naga suurowdo ma haddii la isku dayo wax aan sax ahayn oo dawladda iyo maamulka iyo inta la tashataa hadday isku daydo wixii aan dan ahayn oo dadka dan u ahayn oo lagu afduubayo ninkii islaamaba wuu ka dhiidhiyaya mana ogolaan doono mana yeelayno mana qaadan haddii la rabo dadka wixii lagu sameeyey iyo deegaamadii laga tegey in lagu aamuso annaga aan ku aamusayn adduunkana la joogna aakhirana la tegayna intaasaan ku soo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidaas aad maqlaysaan xumbays oo karkaar ka tirsan tuulooyinkii hoos tegey waana la ka jaray oo karkaar baa lagu daray mana aqbalayno dadkaygii baana degan meel kalena la rabaa in lagu darsado waa dood ka taagan sohdimaha waxay ka taagan tahay gobol kasta bari ha ugu badnaadee gobol kastay ka taagan tahay ma aha xasan shire abgaal iyo aaranjaan oo keliya cidda hor taagan doorashada sagaalka xisbi oo marka laga reebo kaah 8doodii kale 13 qodob ay soo saareen tusaale ahaan baan idinku soo qaatay sohdimaha lama xallin waxba dhowr qodob baa laga xalliyey waxaa lagu eedeynaya dawladdu inay kala laaluushtay xisbiyadii oo iyagii intay kala qaybisay ay in badan banaanka taagan yihiin qaarna ay dawladda la jabeen ilaa 3 baa la jabay baa la yiri dawladda ma ujeedaa inkastoo aan bal wixii doono nimankii guddoomiyeyaasha ka aan waraysan doono dawladda waxay leeyihiin kuwaan kale ku eedeynayaan laaluush baa la siiyey ama dawladda wax u sheegtay saasay xagga u raaceen laakiin qodobadii weli lagama jawaabin waxaad kaloo dhegaysataan haweenkaana bal dhegaysta bari ka hadlaya iyo boosaaso magacaygu yahay Faadimo Maxamed Xasan oo ku nool Boosaaso waxa weeyaan oo danyaro ah kaarbaanu haysanay intaasoo sanaanu haysanay waxa weeyaan anagu cidna yacni ma taageersanayn dadka qaxoontiga masaakiinta baanu nahay waxa dhacday in la yiraahdo yaa haddaydan kaarka keenin ama u codeeya dawladda ka yaa haddii kale kaarka soo wareejiya yaa marka waxaan ka codsanaynaa yaa WFP yaa inay arrinta tan yaa talaabo sharci ka qaado inta dacwo ka nahay kaararkaas oo ay nasiisay WFP in la yiraahdo haddaydan xisbiga dawladda u codeynayn ka waa la idinka qaadayaa sidaasina xaq maaha waxaan doonaynaa cadaaladda in la ilaaliyo baan doonaynaa kaararka iyagana si xor ah aan ugu maamulano uguna shaqaysano intaas baanu codsanaynaa dadkana waa u sheegaynaa anoo ah Maryan Maxamed Cali waxaan inii sheegaynaa walaal anagoo dad magaalada deegaanka degana oo masaakiin oo dad danyaro ayaan kaararkaanu qaadanay haddii aan baaliir kaararka aynan ugu codeynayn kaararka dawladda haddaadan ugu codeynayn kaararkan WFP ka qaadan nala ku hanjabay nagu soo wareejiya kaararka iyaga anigoo magacayga la yiraahdo Foosiya Maxamed Cali Cismaan waxa weeye oo ku nool kaamka buuraha anigoo ku nool kaararkayga WFP na siisay in nala ku gumaysto oo nala ku yiraahdo muxuu ahaayay kaararka ilaa keena qasab u keena haddaynan u codeynayn muxuu ahaayay ka aynan u codeynayn iyo dawladda saad maqlaysaan dawladdii baa waxay samaynaysaa wax la yiraahdo distortion ama blackmailing waa inaad noo codaysaan haddaad noo codayn weydaan kaararka aad cuntada ku qaadataan baanu idinka qaadaynaa waa su-aale siciid kaararka maadaa iska leh maadaa baxshay ma WFP baa kaah noqotay hadduu isagu kaararka dadka siin lahaa oo dadka masaakiinta nin wax tara uu ahaan lahaa maanta waa u garaabi lahayn ilaa waa inaad noo codaysaa haddii kale kaarkii WFP ku siisay baan kaa qaadaynaa halkaasay maraysaa saan idiin sheegay doorashada cidinama diidanee gacantaas aan aaminka ahayn oo aan kalsoonida lagu qabi karin weeye waxa mushkilada ahi waxaanuna waxay u baahan tahay in laysla lafaguro doorashadan dadkaa wada leh doorasho heshiis lagu wada yahay ayaa loo baahan yahay caawa waxaa shir u fadhiya beesha dishiishe 80 oday oo ka mid ah waxay soo saari doonaan baaq iyo qaaticid
iyo cambaarayn ay cambaaraynayaan ama sheegayaan inaysan gelayn doorashadan sababtoo ah weli sohdimihii lagama heshiin qodobadii laysku haystayna lagama heshiin cali saleebaan saasoo kale waa kuwa hadda ka hadlaya xumbays waxay ka hadlayaan carmo meelo badan bay ka hadlayaan bari inteeda badan waxa ay kala hor imaan doontaa dowladda diidmo ay diidan tahay doorashada diiwaangelin baan samaynayaaba yacni warcagaha dhulka u dhig waxa aad ka hadlaysi waa wax fiicane siidaa adigu ligligeeda siidaa ha isku beegin ha isku aadaadin si aad adigu uga soo baxda meesha lagu dooran maayo cid ku rabtaa si ciid ma jirto mana khasbi kartid dadka I know inaad ku tiri nin wasiirahoo federaalka ka tirsan xabad baan ka ridayaa waa burburinayaa haddii aniga la ii dooran waayo I know that dadkuna waa ogyihin laakiin lagaa yeeli maayo aan run baan kuu sheegayahay haddaad isku daydid inaad dhibaato geysatid sababtuna ay tahay ilaa waa in lay doortaa ama waqti aan ku darsadaa adaa ku baxaya siciid waad ku baxaysaa gacanta dadka reer puntland baadna ku baxaysaa intaadan ceeboobin si sharaf leh meesha uga tag doorashada dhig la fariiso xisbiyada dhexdooda dhig qodobada ay ka hadleen oo dhan ha la xaliyo 13 qodob oo aad tirahdeen waa xalinaynaa marka la xaliyo markaa kadib baa doorasho la qabanaya goortay doonto ha noqoto laakiin inta ka horeysa dalqadaan idinka gelinaya reer mudug ma ogola oo reer bari qabaa'ilkoodii oo dhan ma ay ogola oo nugaal waxaa hadda la keenay muumin madaxweyne oo boosaaso awal loo diraya bari baa la soo celiyey 20 tignika waa la khasbayaa baa leey nugaal waa la khasbaya xoog baa lagu qabanaya waxaas doorasho lama yiraahdo mana shaqaynayso marka dadka inta khasabka ka daysid dhig ha laga wada hadlo wax la isla leeyahay wey adigu malihid gurigaaga laga sheekayn maayo waxaad boobi kartay boobtay waxaad qaadan kartay qaadatay isku dayday si kasta yeeshay dagaal ka riday dadku intaasoo dhan inay iska kaa cafiyaan oo iska kaa siidaayaan oo nadhaaf ku dhahaan waxba kuma aha waa dad aad ugu fiican saamaxadda iyo cafiska laakiin inaad tiraahid khasab baan doorasho idinkaga samaysanaya anigu aan leeyahay isku aadinaysid lama aqbalayo ma la aqbalayo xisbiyada waa in la furaa doorashada madaxweynaha waa inaan lagu koobin 3 xisbi oo qabsan doona maxaa yeelay muddo ma haysatid aad ku soo diyaarisid sharciyadoodii xataa haddii lagu gelayo doorasho qof iyo coda waa in la furaa su-aal waxay ka mid tahay qodobada waa in dib loo dhigaa doorashada madaxweynaha oo lagu daraa teeramka dambe qolada qabsataa ay ka shaqaysaa madaxweynaha markii lagu guulaysto deegaamada oo dadku ay ID yeeshaan in marka dambe lagu galo tartanka in tartanka lagu galo madaxweynaha lagu galo tartankiisa qof iyo cod annagoo dhan baan rabnaa laakiin ma aadan ka shaqayn 5 sano aad joogtay 5 sano waa kaa dhamaatay sanadkii ugu dambeeyay baa hadda kuu bilaabanaya 1 year baa ku haray maxaad qaban kartaa 1 year marka jooji oo dhig waxaan yacni sababta dhan oo mushkilada keenaysa waa qodobadaas oo aan la fulin odayaashii oo uu markii hore doorashadii xamar uu la aaday dadkii uu boobay oo sanduuqa ku qaatay oo ceebtu ka raacday oo ku soo xoolo beelay oo ku soo sharaf beelay oo isagoo yacni madmuum ah kaga soo noqday ayay dadkii oo dhan ku kala dhinteen dadkoo dhammina ku ogaadeen inuusan ahayn aamin nin wax lagu aamini karana uusan ahayn marka cid aaminaysaa ma jirto cid walba waxay rabtaa waxeedii inay aragto wax ay leedahayna qaadato wax aysan lahayn ma raadinaysa cidina laakiin soodimaha iyagaa madaxa isu geliyey iyagaa iska aliftay iyagoon cidna u dirin bay qorqoreen markaasay magaalooyin xaggaa ka tirsan bay xaggaa ku dareen degmo baa tuulooyinkeedii degmo kale loo qoray waana meel kasta buuqaasay geliyeen iyo xuduud baa laysku haystaa xaggee lagu arkay xuduud laysku haysta puntland ma jirin marka waa fashil system ah oo ku dhisan laablakac iyo emotions iyo isagoo ay u muuqatay intuu seexday uu ku riyooday inuu xoogi karo doorashada oo boobi karo mana shaqaynayso intaasaan odhanaya iyadana khayr baan idiin rajaynayaa qadiyadda zakiya waan ka soo hadli doonaa waxaan ilahay xogo dheeraada in ay ku milan tahay gabdhihii faafiyey sheekada inay ku milan tahay warkaasna waa idiin soo gudbin doonaa khayr baan idiin rajaynaya billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu